Sadio Mane waa shakhsi cajiiba waxa uu isbitaal ka dhisay magaaladii uu ku dhashay sidoo kale waxa uu magaaladiisa Bombali u yahay farxad iyo iftiin u soo baxay magaaladan wax badan ayuu ka caawiyay waxa uu dhisay dugsi waxbarasho si loo horumariyo waxbarashada carruurta deegaankaasi sidoo kale isbitaal casri oo weyn ayuu ka hirgeliyay magaaladii uu ku dhashay abihii waxa uu dhintay isagoo oo aan isbitaal la geyn waa taas sababta uu go'aansaday in isbitaal ka dhiso magaaladii uu ku dhashay markii aan dhimashada aabahay malqay waxaan ahaa 7 jir walaalkay iga weyn ayaa ii sheegay oo iigu imid goob aan kubad ku ciyaarayay waxaana uu igu yiri aaba uu geeriyooday waan xanuunsaday xanuun ayaan dareemay aabahayna waxa uu qabay xanuun dhanka caloosha laakiin isbitaal ma aanan geynin magaalo kale ayaan u soo wadnay si isbitaal aan u geyno halkaas ayuu ku geeriyooday isbitaalka uu ka dhisay magaaladii Bombali ee uu ku dhashay Mane dadka deegaankaasi ayaa iska dawaya sidoo kale tuulooyinka u dhow magaalada ayaa looga imaadaa si looga helo dabiib caafimaad dadka qaar ayaa qabay in ciyaaryahan ku dhashay Bombali uu noqon karin ciyaaryahan heer caalamiya sanadkii 2002 xulka Senegal ayaa ka qayb galay koobkii adduunka waxaana ay ka yaabsadeen dunida waxaana ay dhulka ku jiraan xulka France oo awood badnaa ciyaartii ugu horeysay ee furitaanka waxaana ay u gudbeen wareegga quarter finalka waqtigaasi 10 sano ayuu jiray Sadio Mane waxaana uu ku dayan jiray ciyaaryahan Haji Diouf maanta waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan qaarada Afrika iyo adduunka waxaana uu wax badan ka bedelay noloshii magaaladii uu ku dhashay iyo tiisaba waxaana uu ku caawiyay dadka deegaankaasi lugtiisa dahabiga ee Mane